كل جين وايد سلامة أنا وحنا دافع وحنا دمين سو أنت أصيدك ما في الله شروينها وذا تشجع بونتلان قال كعيوشان يلا باتن إلى يسقال يلا باتن بيش أغسطس لبكون يشان يطبان قوانا ذا شروينها وذا تشجع بونتلان وجهك كواد أرر iyadoo laga duulayo baahida ay dadweynaha reer Puntland u qabaan shirweyne ay kaga wada tashadaan ayahooda isla markaana dib ugu milicsadaan ujeedooyinkii iyo himiladii ay u dhisteen dawladda Puntland 17 sano ka hor waxa magaalada Gaalkacyo ku qabsoomay 25 ilaa 29 bisha Agoosto 2015 wajigii koowaad ee shirweynaha wada tashiga ee Puntland shirweynaha waxa kasoo qayb galay 230 qof oo 202 ergay ahayd 28 ay ahayd marti sharaf kuwaas oo metelaya guud ahaan bulshada Puntland waxaana looga wada hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin xoojinta midnimada iyo jiritaanka Puntland adkaynta nabadda iyo xasiloonida iyo taabagelinta nidaamka xisbiyada badan haddaba shirweynaha wada tashiga Puntland waxaa laga lahaa 3 ujeedo oo kala ah in la adkeeyo midnimada bulshada Puntland iyo isku xirka ummadda oo ay ka mid yihiin qurba joogta iyada oo laga duulayo rabitaankii iyo mabaadi'dii lagu aasaasay Puntland 1998 lana tixgelinayo duruufaha jira 2 in laga tashado maaraynta khilaafaadka ku salaysan khayraadka dabiiciga ah siyaasadda iyo aanada 3 iyada oo laga ambaqaadayo rabitaanka bulshada Puntland iyo hoggaankeeda in si dhab ah didibada loogu taago nidaamka xisbiyada badan dib la noo bilaabo shirweynaha wada tashiga Puntland waxa uu ka kooban yahay 4 waji oo looga arinsanayo arrimaha korku xusan ee aan soo sheegay waxayna kala yihiin shirarkaasi wajiga koowaad oo ay isugu yimaadeen dawladda iyo xubno wakiil ka ah ururada bulshada rayidka ee Puntland oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo wajiga labaad oo ay isugu iman doonaan hoggaanka dhaqanka ismada Puntland oo ka dhacay doona magaalada Qardho wajiga saddexaad oo ay isugu iman doonaan wakiil metelaya qurba joogta reer Puntland kana dhici doona magaalada Garowe iyo shirka ansixinta oo ay ka qayb gali doonaan xubno laga soo xulay ka qaybgalayaashii 3 waji ee hore kana dhici doona magaalada Garowe kaasi oo noqon doona gunaanadka shirweynaha wada tashiga Puntland 2 go'aanada shirweynaha wada tashiga Puntland wajiga koowaad 2.1 himilada Puntland shirweynuhu isagoo garoosan himilada Puntland lagu aasaasay ay ahayd in shacabku helo haykal dawladeed oo dhammaystiran daboolana baahida bulshada Puntland baadi goobana qaran Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaam federaali ah shirweynaha wada tashiga Puntland wuxuu garowsaday dhibic in lagu guuleystay dhamaystirka haykalkii dawladnimo ee Puntland inkastoo ay tabashooyin jiraan dhibic in lagu guuleystay baadi goobkii qaranka Soomaaliyeed iyadoo la dhisay dawladdii ugu horeysay ee federaali ah 2004 waxaana xigtay tii la dhisay 2012 shirweynuhu waxa uu garowsaday in Puntland xoog xoolo iyo maskaxba ay gelisay helitaankii dawlad Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaaliga ah lana gaaray hase ahaatee aysan ka helinin xuquuqdii iyo mudnaantii ay ku lahayd shirweynuhu waxa uu go'aamiyay in Puntland iyo dawladda federaaliga ahi ay soo afjaraan khilaafaadkooda siyaasadeed si loogu gudbo dhisme qaran Soomaaliyeed oo ku dhisan sinaan cadaalad iyo horumar 2.2 midnimada iyo wadajirka Puntland shirweynuhu waxa uu go'aansaday in dawlad iyo shacabba loo hawlgalo soo celinta deegaanada maqan kuwaasi oo maqnaanshahoodu dhaawac weyn ku yahay
midnimada iyo dastuurka Puntland sidaas darteed waxa shirweynuhu go'aansaday in la magacaabo guddi dawlad iyo shacab loo dhan yahay oo u howlgala ama ka howlgala soo celinta deegaanada maqan ee Puntland. 2.3 hoggaanka dhaqan ee Puntland. shirweynuhu waxa uu qirayaa in hoggaanka dhaqanka bulshada Puntland uu dhexdeeda uu ku dhexleeyahay xurmo iyo qadarin soo jireena isla markaana dastuuri ah. sidaas darteedna shirweynuhu waxa uu ku talinayaa in ismadu ay ka dhowrsoonaadaan ku milanka arrimaha siyaasadda oo sharaftooda iyo haybadooda wuxuu dhimi karaa kuna ekaadaan doorkooda dhaqan ee shariifka ah. 2.4 qurba joogta Puntland. shirweynuhu waxa uu garowsaday in maalqabeenka aqoon-yahanada iyo guud ahaanba qurba joogta Puntland ay wax badan qabteen guud ahaan iyo gaar ahaanba. haddaba shirweynuhu waxa uu uga mahad celinayaa waxqabadkooda wuxuuna shirweynuhu isla markaasi ugu baaqayaa in maalqabeenada iyo aqoon-yahanada qurba joogta reer Puntland ay maalgashadaan dhulkooda dawladuna ay u sahasho shuruucdii iyo tahsiilaadkii dhiirigelin lahaa. 2.5 khilaafaadka siyaasadeed. khilaafaadka siyaasiga ah waxaa looga hortegi karaa dawladda oo shuruucda dalka hirgelisa lagana gudbo hab siyaasadeedka ku dhisan qabiilka loona gudbo nidaamka xisbiyada badan si dhaqso badanna ama sida ugu dhaqsaha badanna loo hirgeliyo. 2.6 dilalka aarsiga ah. faldambiyeedyada keena dil ama dhaawac shirweynuhu waxa uu go'aamiyey in lagu xalliyo shareecada islaamka sida dilka magta dhaawaca. 2.7 khilaafaadka khayraadka dabiiciga ah. shirweynuhu waxa uu garowsaday in dhulka lahaanshihiisa ay dadweynuhu leeyihiin dawladuna wakiil uga tahay ku dhaqankiisa iyo maamulkiisaba ha ahaado dhul daaqsimeed ceelbiyood dhulbeereed iyo dhulka magaalooyinka. sidoo kalena ay dawladdu fuliso siyaasado ama siyaasadda iyo xeerarka ilaalinta deegaanka. shirweynuhu waxa kaleeto uu garowsaday in la sameeyo guddi la yiraahdo guddiga ka hortagga colaadaha iyo xallinta khilaafaadka oo heer Puntland ah. 2.8 dhibaha ciidanka. shirweynuhu waxa uu aqoonsaday baahida loo qabo in dawladdu fuliso shuruudaha ama shuruucda aan iraahdee ciidamada u yaala ciidankuna ay noqdaan ciidan qaran oo dawladdu damaanad qaado xuquuqdooda iyo agabkooda. dhibaha ciidanka gudihiisa ama dibadiisa ka dhaca waa inay beelaha dib ugu soo noqon ee dawladdu hab sharciga dalka ku waafaqsan ay ku xalliso. waana in dawladdu ay la timaado siyaasad cad oo ay ciidanka ku qoranayso kuna howlgelinayso. 2.9 geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland. shirweynuhu isagoo garowsan in dimuqraadiyaddu ay tahay nidaam lagu gaaro in lagu fuliyo adeega bulshada oo ku dhisan sinaan cadaalad hufnaan iyo isla xisaabtan kuna yimaada rabitaanka shacbiga iyagoo dooranaya cidda hogaaminaysa si waafaqsan diinteenna dastuurkeenna iyo dhaqankeenna suuban. haddaba shirweynuhu wuxuu go'aamiyey in si degdeg ah loo magacaabo guddiga doorashooyinka si uu u guto waajibaadkiisa hoos ku qoran aan soo sheegayo. dhamaystirka shuruucda doorashooyinka. wacyigelinta bulshada ee arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. 2 in la dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd. 3 in la magacaabo guddi daraasaad iyo qiimayn ku sameeya kororka iyo xadayn la'aanta ama xuduud xadayn la'aanta degmooyinka iyo gobollada Puntland.
labo dhibic toban arrimaha dhaqaalaha iyo garsoorka si loo gaaro ama loo fuliyo dhammaan go'aanada kor ku xusan shirweynuhu wuxuu go'aamiyey in si cilmiyeysan loo horumariyo dhaqaalaha iyo garsoorka dalka isla markaana la madax banneeyo xisaabiyaha idman la tayeeyo xafiiska hanti dhowrka guud la tayeeyo maamulka maaliyadda guud la tayeeyo garsoorka shirweynuhu waxa uu walaac xoog leh ka muujiyey xaaladaha badaha Soomaaliya gaar ahaan Puntland oo ay xaalufin xad dhaaf ku hayaan kalluumaysato sharci darro ah loona baahan yahay in dawladdu ay wax ka qabato kalluumaysiga sharci darrada ah iyo arrimaha tahriibta labadaba. 3 damaanadda fulinta go'aanada shirweynaha ka soo baxa waxaa damaanad buuxda u ah ku dhaqanka dastuurka shuruucda kale ee dalka u yaala iyo dhammaystirka hay'adaha dastuuriga ah ee Puntland. intaas waa intii hore waxaynu gelaynaa baaq nabadeed kadib wadatashi falaqayn iyo dib u eegis lagu sameeyey himiladii midnimadii iyo wadajirkii Puntland lagu dhisay lana garowsaday saamaynta colaadda beeleedyada iyo khilaafaadka bulsho ee ay keeneen siyaasadda khayraadka dabiiciga ah iyo aanadu shirweynaha wadatashiga Puntland ee wajiga koowaad ee ku soo gabagaboobay magaalada Gaalkacyo maanta oo Sabtida 29 bisha Agoosto 2015 wuxuu baaq u soo jeedinayaa bulshada Puntland. shirweynuhu waxa uu guud ahaan ugu baaqayaa bulshada Puntland in ay ku wada noolaadaan nabad midnimo iyo iskaashi una hoggaansamaan dastuurka iyo dawladnimada Puntland gacanna siiyaan hay'adaha amniga iyo garsoorka si loo xoojiyo nabadda wadajirka ummadda iyo hirgelinta sharciga. wuxuu kaloo shirweynuhu ugu baaqayaa bulshada Puntland oo ay hormuud u yihiin hoggaanka dhaqanka iyo siyaasaddu inay u guntadaan xalinta colaad beeleedyada iyo khilaafaadka siyaasadeed ama dhaqan ee aloosan si loo helo midnimo nabad waarta iyo horumar. wuxuu kaloo shirweynuhu bulshada Puntland ugu baaqayaa in ay u midoobaan ka hortagga wax walba oo khalkhal gelinaya nabadda midnimada iyo jiritaanka Puntland gacanna ku siiyaan dawladda gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ah. 2 bulshada Soomaaliyeed baaqa loo jeedinayo shirweynaha wadatashiga Puntland waxa uu ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah ugu baaqayaa inay ka waantoobaan colaadaha iyo khilaafaadka siyaasadeed ee ragaadiyay dawladnimadii wadajirkii iyo horumarkii ummadeed kana dheeraadaan wax kasta oo ummadda kala geyn kara oo ay ka mid tahay hadallada xanafta leh ee warbaahinta la isu marinayo. wuxuu kaloo shirweynuhu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay dhammaan khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee jira ama iman kara oo ay ku xalliyaan wada hadal tanaasul iyo isfaham si loo ilaaliyo danta guud loogana baaqsado colaad sokeeye iyo dhiig Soomaaliyeed oo ku daata. shirweynuhu waxa kaloo bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay nabad iyo deris wanaag kula noolaadaan ummadaha la deriska hormuudna u noqdaan iskaashi nabadeed iyo mid horumarineed oo dhex mara ummadaha walaalaha ah ee geeska Afrika wada degan. 3 baaqa beesha caalamka loo jeedinayo shirweynaha wadatashiga Puntland isaga oo garowsan kana mahad celinaya taageerada beesha caalamku ay mar walba la garab taagan tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland. wuxuu beesha caalamka ugu baaqayaa in aanay ka daalin gargaarka iyo taageerada ay siiyaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhismaha
nabadda iyo hay-adaha dowladeed ee heer federaal dowladaha xubnaha ka ah iyo maamulada ku meel gaarka intaba shirweynuhu waxa kaloo beesha caalamka ugu baaqaya in deeqaha iyo kaalmada bini'aadanimo iyo horumarineed ay ugu deeqaan ummadda Soomaaliyeed ay u qaybiyaan si siman oo aan horseedin kala tabasho iyo colaad shirweynuhu waxa beesha caalamka ugu baaqaya in xayiraadda gargaarka horumarineed ee saaran gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka qaadaan si bulshada gobolladaasi ay saamigooda uga helaan mashaariicda horumarineed ee beesha caalamka gabagabadii shirweynuhu waxa uu uga mahad celinayaa dowladda Puntland oo hormuud u yahay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas suurtagelinta shirweynaha labaad ee wadatashiga Puntland waxa kale oo uu mahad ballaaran u jeedinayaa maamulka iyo shacabka gaalkacyo soo dhaweyntii iyo martigelintii muddadii shirweynuhu socday wuxuu kaloo shirweynuhu bogaadinayaa dadaalada lagu soo celinayo hantidii dawladda iyo bannaynta wadooyinka ee ka socda degmada gaalkacyo taasoo astaan u ah bisaylka shacabka iyo u hoggaansanaanta sharciga ugu dambayn shirweynuhu waxa uu mahad celinayaa qabanqaabayaashii shirweynaha deeq-bixiyeyaasha guddigii qabanqaabada iyo guddiga xagidda shirgudoonka iyo cid kasta oo gacan ka geysatay qabsoomidda iyo habsami u socodka shirweynaha wadatashiga Puntland waxaa go'aanada shirweynaha si wadajira u saxiixaya iyaga oo ka wakiila guud ahaan bulshada Puntland gaar ahaan ka qaybgalayaasha shirgudoonka ayaa saxiixaya shirweynaha iyo madaxweynaha dowladda Puntland shirgudoonka shirweynaha haddii aan taxo magacyadooda waxa weeye Cabdiraxmaan Diiriye Qoorad oo ah gudoomiye Caasha Cismaan Ismaaciil gudoomiye ku xigeen Yaasiin Cabdi Saamad Cumar xoghayn Axmed Maxamed Jibriil xubin Cali Daahir Cilmi xubin Yaasiin Cartan Maxamed xubin iyo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa intii isku taxalujisay qabanqaabada shirkan taariikhiga ah sida wanaagsanna u agaasimay ay ka mid yihiin guddigii qabanqaabada shirka hay-adda BDRC guddigii aad iska doorateen idinku ee hawsha si fiican u gudagalay una daadihinayay ergada ka soo qayb gashay dhammaanteed ee waqtigooda qaaliga u soo huray inay shirka ra'yigooda iyo fikirkooda wanaagsan ay ku biiriyaan ugu dambeyntiina waxaan aad ugu mahadnaqayaa saxaafadda ciidamada iyo tan ugu muhiimsan oo ah hay-adda GECBD oo ah hay-addan nagu martigelisay gurigeedii runtiina shaqo fiican u haysa dalka ayna hogaaminaysay waqti la yiraahdo Hawo aad iyo aad baad bay u mahadsan yihiin waxaad ka doodeen qodobo muhiim ah oo aad u aragteen inay xaqiiqada maanta ee Puntland ay ka tarjumayaan waxaan maraynayaa inaad ka hadasheen meesha aan ka nimid wixii inoo shaqeeyey wixii ina ka bacsoomay iyo hadda meesha aan u soconno iyo sida aan ku gaareen intaas inaad si fiican uga hadasheen ayaan rajaynayaa ujeedada shirka ugu muhiimsani waxay ahayd dadka Puntland dawladdu waa dadka
shacbiga Puntland inay helaan fursad ay ku cabiraan ra'yigooda si xorana ay uga doodaan. waxaan rajaynayaa in xorriyadda aad hesheen si wanaagsan oo aan reservation lahayn na aad uga doodeen ajandayaashii hor yaalay oo muhiimka ahaa muhiimna u ahaa masiirka dalkan aan ku noolahay ee Puntland. wax badan baad ka hadasheen aan ogahay xaraba dhowr qodob oo muhiim ah marka inaan dul istaago. waxa ugu horeeyay amniga aan u maleynaya si mug leh inaad uga hadasheen. waan ognahay dhammaanteen in dal aan amni ahayni inaysan dowladnimo ka taabagalayn. marka amnigu inuu mar walba yahay waxa ugu muhiimsan oo meel walba aan isugu nimaadno aan isku baraarujinno kana wada hadallo sugidiisa iyo taabagelintiisa. waxaad ka hadashay baan u maleynayaa amniga ugu horeeyaan difaaca xuduudaha Puntland. dowladii haddaysan xuduudeeda difaacan karin dan dowlad ma ahaan karto. waxaan u maleynayaa inaad ka hadasheen hubka sharci darrada ah ee dalka lagu haysto. dowladnimadu waxaa la yidhaahdaa waa cidda keliya ama hay-adda haykalka keliya ee xaq u leh inay hub haystaan. monopoly power on violence waxa la yidhaahdo ayada ayaa xaq u leh. laakiin haddiiba shacbigii dowladdii ka xoog bataan dee see dowladnimo u jiraysaa marka ma jirayso. haddii shalay meeshii buntuka kooyo tobanlaha iyo tooreyda lagu dagaalamayay maanta qabiiladu ay isu soo gurtaan baroono maxaa dhacay? waay maasanta. waxaan filayaa marka ajandayaashaas muhiimka ah inaad si dhab ah aada uga hadasheen go-aanna uga gaarteen waana dhegaysanay. waxaad ka hadasheen cadaaladda. rajaynayo waxyaabihii qodobadii aad ka hadasheen ka mid ahay cadaaladda dadku in ay xuquuqda iyo waajibaadka u siman yihiin waa calaamadda dowladnimada. in badan baan ku celceliyey midna waa mid shaksi midna waa mid deegaan. axmed hadda wuxuu yidhi ha laga dega laamiga. haddaan laga degin cadaalad deegaan ma jirayso. laakiin hal baan bartay. waxaan ogaaday cadaaladda in nin walba isagu si gaar u yaqaan. markay qabiiladu ku yimaadaan ay aniga imaanayaan kii xildhibaanka lahaa oo wasiirka lahaa oo maareeyaha lahaa oo agaasimaha guud lahaa ayaa dulba tirsanaya. waxaa la rabaa marka waxayna mar walba kaa codsanayaan dadku inaad cadaalad ku shaqayso. dhibta kale jirtaa waxay tahay markii cadaaladda aan ka hadlayno madaxweynuhu dalka ugu sarreeyaa imise jago ayuu isagoo gacantiisa ku qaybin karaa. madaxweyne baarlamaan ma qaybiyo. agaasimo waaxeed oo anagu hadda aan niri dadku imtixaan ha loo galo iyo wixii ka hooseeyana annagu ma qaybino. wasiir ku-xigeen wasiir dowli agaasimo guud jilib kasta iyo qabiil kasta iyo reer kastana waa rabaa. hal ma rabaan, laba ma rabaan, saddex ma rabaan, ka badan bay rabaan. waxaa la rabaa marka cadaaladda inaanu si dhaba u akhrino. waxaa la rabaa kulligeen inaanu isu cadaalad fallo.
dowladdu way horseedi kartaa laakiin garashadeeda iyo fikirkeeda iyo taabagelinteeda iyo aragtideeda suuban idinkaa laydinka rabo waxaase muhiim ah oo dowladdu iyadu ay qaban kartaa waxaa weeye in khidamaadka ama serviceska dowladnimadu shacabka Puntland isku si u gaarto taasaa muhiim khayraadka dalkuna isku si looga ay u gaaraan tuulada ugu shishaysa Puntland iyo caasimadu waxaa la rabaa in khayraadka dalka iyo serviceska dalka isku si u gaaraan horumarka Puntland وين يحصل بالسنة Puntland اسمها تذكر إني محلية وين يراهدان شري يمانتا كمان في عني شري يمانتا كمان نهر مسنا بوشرة يدينا ذكركود وين يسن احترسن وين يسن إيدين باسمه Puntland aan lahayn Puntland ka hor ayaa maanta haysta Puntland oo dhisnay dhulkii Puntland ahaa ayaa maanta aalmay kaabayaasha dhaqaalaha waa inaan ku dadaalnaa qofkii Puntland u soo socdaahay waa inuu si sharaf iyo raaxo leh u ku yimaado Puntland qofkii badeeco keensanaya waa inuu helaa dekad mugle oo badeecada ka dagsado waa inaan la oran containerkaagii boosaasalma keeni jid dadka iyo dunyada Puntlandba ay maraan oo si wanaagsan u maraanna waa inaan helnaa dimuqraasiyadda Soomaaliya waxay leedahay taariikh fiican doorasho iyo dimuqraasiyadeed waa la socotaan 1960kii ilaa 1969kii wax aanu lahayn dowlad dimuqraatiga oo dhab ah ceebo aysan lahayn ayaa dowladda laga sheegay waxaa idinku filan waxaa weeye 9 sano hal qof oo Soomaali ah oo ra'yigiisa ama fikirkiisa u xiraan uusan jirin waxaa dhacday in madaxweynayaal si nabad ah midna uu xukunka ka dago midna uu si nabada xukunka lagu wareejiyo garanaysaan Cabdishiid Cali Sharmaarke iyo Aadan Cabdi Cusmaan konton sano ka bacdi waa in iyadoo aqoontii ka badan tahay waayo aragnimadii ka badan tahay dadkuna intii ka badan yihiin in aanu awoodno annagoo taariikhda wanaagsan leh in aanu awoodi weyno in aanu si xor ah qofku uu si sharci oo wanaagsan oo xor ah oo qofku doono ku soo doorto waxaa weeye waxaan u leeyahay waa dib u dhaca ugu weyn Soomaaliya ku dhacayo waan awoodnaa marka laakiin mid baa laydinka rabaa dimuqraadiyadda aan Puntland u raadinayno waxaan kaga gudbaynaa nidaam qabali ah waxaan u gudbaynaa nidaam dimuqraatiga oo xor ah marka dimuqraasiyadda aan raadinaynahay waa inaysan noqon dimuqraasiyad qabali ah xisbiyada aad soo dooranaysaan ama aad soo dhisanaysaan waa inaysan sumadii geelina lahayn midnimada Puntland waxa aad ka hadasheen maanta oo dhan ishiyada aad falanqayseen oo aan ku dhuminay waqtiga tirada badan ma hirgelayaan haddaan la helin midnimo Puntland masuultooda Puntland mararka qaarkood waxay leedahay cadow Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii cadowgaagu bato xuduudaada la mideeya waxay u baahan tahay Puntland wax kasta oo dib u jira
mid nabadeed, mid security iyo mid dimuqraasiyadeed iyo mid horumarineedba waxay kaga gudbi kartaa midnimo iyo wadajir. go-aamada shirweynaha go-aamada aad isku raacday shirweynaha annana waa idinku raacnay, annana waa saxiixay. waxaa la rabaa go-aamada aad gaarteen inay fulaan. annagu waa fulinaynaa, laakiin idinka idinka fusha. shirkan waxaa xigi doonaa shirkii isimada. waxaan rajaynayaa shirkaasi meesha aad u keenteen inuu wax ku daro, ka bacdina aan u gudubno shirki kale ee diasporada amase dadka qurba joogta ah. qurba joogteennu waa noo muhiim, door muhiim ayay leeyihiin. waxaan u baahannahay aqoontooda, waxaan u baahannahay dhaqaalahooda, waxaan u baahannahay waayo aragnimadooda, waxaan u baahannahay fikirka dawliga ay ka qaateen kana barteen dhulka horumar ay ku leeyihiin. kabacdina waxaan isugu imaan doonaa shirka gabagabada ah ee go-aamada kama dambaysta ahi kaga soo bixi doonaan Garowe haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan rajaynayaa in 5 sano ka bacdi ama 10 sano ka bacdi ay Puntland isugu timaado shirkan ka duwan. waxaan rajaynayaa ishiyada maanta aad ka hadasheen iyo dhibta maanta jirta annagoo ka gudubnay, ka bislaanay, ka weynaanay, xallinay inaan isugu nimaadno shirka guriga. waxaan rajaynayaa problemyada markaa jiri doonaana inay yihiin kuwa maanta ku ahayna ka duwan, kana sahlan, aanna ku noqon caqabad horumarka iyo midnimada Puntland. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. guul iyo khayr baan idin rajaynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi.